ha isdhabar jabinin. run ahaantii marka aad intaa samaysid ee kursiga number fiican aad geysatid ee culeyskana aad culays fiican aad geshatid gacmahana aad kor u qabsatid waxaad u baahan tahay instructionka saxda ah waa kan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. soo dhowaada dhammaan asxaabta ku xidhan kanaalka Mame Sport. habeen wanaagsan intay habeen u tahay, subax wanaagsan sidoo kale intay subax u tahay, galab wanaagsan intay galab u tahay. Ramadaan kariim, Allah naga aqbalo soonka, salaada iyo cibaadada intaba dhammaantiin. soo dhowaada. run ahaantii saad uga barateen kanaalka Mame Sport waxaan focuska ku saarnaa waa jimicsiga jirka. intaynan u gudagelin mawduuceena waxaan doonayaa inaan laba tusaale oo si maskaxiyana inaad si magaranaysaa dee maxay aduu inaad laba tusaale ayaan doonayaa ii soo bandhigo. labada tusaale dhuux inaad fahantiinna waan jeclaan lahaa. tusaalaha koowaad waa shaqaysaa, meel baad ka shaqaysaa ama meherad baad ka shaqaysaa ama dukaan ama aduu business aduu waad shaqaysaa. subaxii 7 tigtaa shaqada sida caadiga 6 ka soo baxdaa. okay, subax kasta waa tagtaa waad ka soo noqotaa, subax kasta waa tagtaa waad ka soo noqotaa. bisha markay dhammaato maxaad ku xisaabtamaysaa? waxaad ku xisaabtamaysaa in xaqaagii dhididkaagii oo xalaala aad heshid. waan isla fahamnaan jeclahay. yacni maalin kasta shaqada waxaad u aadaysaa waxa weeyaan in aad mushaar fiican aad heshid, soo maa ama lacag fiican ay ku soo gasho. okay, haddii lagu yidhaahdo bal waxba ma heli sida iska shaqee ma tegi lahayd? waa maya, ka gudub. tusaalaha kale waxaad haysataa dhul weyn oo dhul beereeda, waxaad ka samaysay dhulkaa weyn beer baad ka samaysay, waad fanatay. aduu waxaad isku dayday inaad maaragtay dhulkii aad wax kala soo baxday. dhulkii baad wax ku beertay, tacab iyo maal iyo muruq iyo wax kastaad gelisay. maxaad sugaysaa marka? waxaad sugaysaa waxa weeyaan in ay beertan aad manaafacaatid oo wixii aad ku beertay aad ka goosatid berit hore. isla fahmay soo ma? okay, mawduucayga iyo nuxurkayga iyo meeshaan u socdo waxa weeyaan isboortiga marka aad aadid waxaad inaad iska aadaysid oo soo noqonaysid maaha. waa in aad niyadaada ama maskaxdaada gelisaa wax inaad ka soo faa'iidid meesha. waxaas waa ahaado isbeddel ama muuqaal cusub inaad ku keentid jirkaaga, ama inaad isbeddel fiican kala timaadid meesha, ama inaadan isku dhaawicin hawacaadan isku gaarsiisan. dunida waad aragteen sanadba sanadka ka dambaysa isbeddela dhacaya, waxbaa isbeddelaya, horumar baa la gaaraya. waxaa laga yaabaa moobil, tusaale ahaan oo kale moobilada sanadba sanad ka dambaysa moobil cusub baa soo baxay. baabuurta sanadba sanad ka dambaysa baabuur cusub baa soo baxay. waxaa laga yaabaa baabuurkii 2000 inuu waqti hore kugu dambeysay, moobilku sidoo kale. calaa kulli xaal dunidu adigu waa isbeddelaysaa sanadba sanadka ka dambaysa. boortiyada meelaha lagu sameeyo gaar ahaan Yurub iyo Amerika sanadba sanadka ka dambaysa waxaa la keenaa mishiino casri ah. waayo dadkii hore mishiino kumay samayn jirin, waxay ku samayn jireen mishiino adiga dee mishiinadan dambe aan la midka ahayn. haddaba mishiinkan la keeno isboortiga dhexdeeda waxa uu u baahan yahay inaad ka haysatid aqoon. iska gal oo mishiinka iska wad maaha, waa in aad aqoon ka haysataa. aqoontaas maxay noqon kartaa? waa aqoonta aad ku samayn lahayd ee aad ku dhisan lahayd jirkaaga. haddaba waxaan isku dayay inaan muuqaalo ka soo duubo mishiinadaas casriga lagu sameeyo muruqa gacanta, garbaha, lugaha, dhabarka. adigu waa fara badan yihiin. insha Allah waxaan isku dayayna bal inaan kolba mid aan ka soo duubo si magaratay aad faa'iido uga heshid, aadan dee mustaqbalka maaragtay aadan u curyaamin oo intaad wax qaldan samaysid dee aad magaratay saameyn kugu yeelato. sidaa dee maaragtay dad oo caana ama dad oo body builder ama oo jirkoogu dhisan yahay oo hadda ku dambeeya magaratay room stool waxa yidhahdaa ama gaari curyaan fadhiya, sida aadan noqon ayaan doonayaa insha Allah. bal horta muuqaal waxaan isku dayay inaan maalin kastaba aan wixii aan awood aan kasoo duubo. aan maanta ka hadli doonaa waa muuqaalka mishiinka dhabarka. dhabarka hoose maaha, waa adigu dhabarkan oo labada cidhifa. marka bal aan isla fiirino qaabka loo sameynayo.
okay muuqaalka aad u jeedid hadda waa mishiinka aan hadda ka hadlayo. muuqaalkan mishiinkan waxa uu ka kooban yahay, muhiimadiisu waxa weeyaan waa 3 nooc. waa kan oo la soo jiidayo iyo kursiga oo kor u qaadanaysid iyo miisaanka oo ku darsanaysid. waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan marka aad fadhiisatid sidee ayaad maaragtay aad u lifti garan kartaa ama u soo qaadan kartaa mishiinka. marka ugu horeysa waxaad kursiga aad ku fadhiisanaysid mishiinka nambaru leeyahay, nambaradaas ayaad kor ama hoos kolba maaragtay dherarkaaga qiyaas ahaan haddii aad dherarkaagu yahay 1 mitir iyo 70 wixii ka badan lambar 6 oo kale waad ku fadhiisan kartaa oo waa caadi. haddaad 1 mitir 70 aad dherarkaaga ka hooseeyana 3 iyo 4 waad ku fadhiisan kartaa. teeda kale culayska kolba qofka culayska uu awoodo xagga ma kaga darsan karaa. culayska wuxuu ka bilaabmaa fudayd 5 ilaa iyo 200 ayuu kilogram ayuu yahay culaysku, laakiin adiga intaad awoodid ayaad gashan kartaa. okay qaybtan sare oo la soo jiidayana run ahaantii waxa weeyaan waa in maaragtay si saxa aad maaragtay aad u soo jiidaa. haddaba ha isdhabar jabin. run ahaantii marka aad intaa samaysid ee kursiga number fiican aad geysatid, culayskana aad culays fiican aad geshatid, gacmahana aad kor u qabsatid, waxaad u baahan tahay instructionka saxda ah waa kan in aad dhabarkaaga maaragtay dhabarka inaad horey aad u soo taagtid, qoortaadana maaragtay aad straight gareysid oo qoorta aad geejisid, kabacdi aad birtana qabsatid, si tartiibana aad maaragtay hoos ula soo degtid ilaa iyo meesha loo baahan yahay inay gaadho. run ahaantii sidaas saxda ah haddaad u samaysid waxaa tahay qofkii shaqaysanaya ee mushaar sax soo qaadanaya iyo kii beerta filanaya ee munaafacaad fiican sugaya, haddaad sidaas saxda u samaysid. haddii kalena waxa weeyaan dee waa lakum diinakum waliya diin, magartay in maaragtay meeshaas aad khasaaro duldul kaa soo gaadho oo maaragtay dhaawac kaa soo gaadho. mana rajeynayo insha allah in dhaawac kaa soo gaadho, balse insha allah muuqaalada aan soo gelino waxaan kaga hadli doonaa habka sida saxda ee maaragtay loo sameeyo jimicsiga. mar hadda soo gaadhay halkan waa dhammaadkii muuqaalka. waxaan rajeynayaa inaad wax ka faa'iiday. waxaan idiin soo wadaa muuqaalo badan oo ku xiiso gelin doona. fadlan nagu soo biir, hana ilaawin inaad muuqaalka noo like gareysid, sidoo kale kanalka inaad subscribe noo saartid, lana wadaagtid mid ka mid a saaxiib aad is leedahay maalin buu fed ama maalin baan fed waa kaftan intaasuna sidaa